si aad ugu xunaato taabo subscribe iyo هلو السلام عليكم هلو السلام عليكم عليكم ان افريكا طلبات كعاوه اسكنا ما شاء الله oo boorka iska soo shaftay ان qaaradii hodanka ahayd waxaan kugu soo dhaweynaynaa barnaamijka tabarucaad u gargaar walaalkaaga dhibanaha iyo walaashaada dhibanaha ku soo dhawow walaal magacaaga iyo da'daada wadankaad beerka u jiiftid iyo maxamed 26 jir isku tuntay wadanka Zambia beerka u jiifa aan marna soo kufin walaal waxaan ku suganahay magaalada Diridhaba ee dagaalka u weyn ka socdo magaalada Diridhaba ee ololeysa allaha waqtiyo magaalada Diridhaba ee ololeysa beerka u jiiftaa beerkaan u jiifa jirkaygiyo uu ku maqla mustaqbalka kii ka soo kaxay lahaye da'daada walaal da'daydu waxa weeye 29 jir dhaxan ku isku tumatay 29 jir iskaraacday Diridhaba beerka u jiifta imsa jeer soo kuftay walaal marna ma kufin waxba maad kufin ma banjartay بايبي wax nin ah iyaga ma lagu siiyay berigaad yarad wax nin yani ma lagu daray nin joof iyo shaharad leh may waxa ana laygu soo raadsamid isku tuntay uu ku jira uu ku maqla maxamed waad maqashaa Zambia beerka u jiifta seed u aragta xabada yar xusul baruurka yarmis goyn ya oo kuri sigala tinjir way inantu tan kala mid baa dadka ayada Ethiopia anu wala soo waligeena ma tagin anigu dalal horaan idinku sheegay war anigu dalal ma qaybiyo baasaboor ma qaybiyo diyuurada ma wato tigidha ma bixiyo waxaan halkan iskiin siinayaa adigoo beerka Zambia u jiifa iyadoo Diridhaba roodhida ku cunta macni anigu waxaan qaybiyaa dad macnihi guur iyo mustaqbal iyo future iyo joof iyo macni jacayl iyo romantic raba adigu ma Diridhaba iyo Ethiopia ka carar baa tahay mise calafdoon Diridhaba yaa maadu yaa walaal Soomaaliya ama Kenya ama Tanzania ama Uganda dad jooga macquul laakiin Ethiopia iyadoo qiiqada Soomaaliya ku dagaalamaysa waxba qiiqeega kaama gelin adu xabadaada yar shandad maad ku soo ridan waxba qiiqeega kaama gelin diyaar bay ama u imanaysa inanka oo dameer iyo wax ma soo raacaysa ilan gaari ma jire kuma jiro masuul walaal inanka walaal way kugu faraxsan tahay inantani waa calafdoon waa daacad Diridhaba ayay macni ku nooshahay inanta intaanad la sugin inuu nin Oromiyo haraatiyo ma ka soo kaxaynaysa inanta ha iyo maya mise buuga horumarkan ku weegaa buuga naxariista ma qaadi karo saaxib ma qaadi karo xaqiiqda kuma qaadi karo walaal waa inan daalan uu daalay inan ku dhuuxu ka daalay ma maqashaa walaal gabadha Diridhaba joogta ha walaal si fiican ma ku maqlaa uu daalay maxaa xala waayahay masuul adiga waxaan kugu xusaynaa buuga naxariiska horumarka iyo romantiga buuga cadaaladda lambarkana waan ka reebay aad baan kuu salaamayaa inshallah ayo wayna sidoo kale adigu ku jir inanta waxa lagu eegayaa nin joof iyo joorad loo Diridhaba gaari kaaga soo qaada barnaamijka sheer garaya walaalayaal dal jacaylsiga iyo macnaheedu hello assalaamu calaykum hello hello walaal waan ku maqlaa salaamu calaykum hello walaal salaamu calaykum wa alaykum asalaam waa sacuudigii khadka ka xun walaal ku soo dhawow barnaamijka tabarucaad waa dhawaay walaal waxaad noo sheegtaa magacaaga iyo da'daada wadankaad beerka u jiiftid inaad caafimaad qabtid iyo inaad 3 jeer soo kuftay kufida maxaa laga wada abtiyo joof iyo joorad ma la kulantay wax inana shay camal maxay kulantay ha magaalada lagu kulmaa kulanka anigu sina kuma weydiinay ilaahay meheriya wax ma kuugu daraynan ha maya saaxiib maya ha waayahay wadankeed ku nooshahay waxa ka soo hadlaya Germany ma sha Allah wadanka from Germany baad beerka u jiiftaa si wacan da'daada rasmiga ah isku dhiibin
soo gabagabee iyo magaaladaad kaga nooshaa jarmalka لحية الله دوج بوسبوت دوج yaa walaal inantu kuma garanaysa waxaad ku hadlaysid iyo inaad kaa cararina da-daada اوكي لحية الله جرماني بوسبوت لا كودا ka gudub 26 jir isku tuntay weeye walaal inankani wuxuu ku nool yahay wadamada habeen walba laga casheeyo wadanka jarmalku beerka u jiifa waa single kaliyuhu barareen inanta diri dhaba joogta seed u aragtaa inankan دير دابا في عمل مارك بس انا عندي عاد مقلهي uu xabeebay uu daalay inamada jarmalku way daaleen sariiraha ay xajinayaan waa inanta codkaaga maqashiyo nafis keli mas-uul ويد هنا waxa ku tirada دير دابا inta ku taaltaa dir yaa دير دابا Soomaali miya qariiradaad ku qori mooyi anu ma ogi aa u sheeg walaal maxaan sheegaa wuxuu ku diri dhabaad halkay ku taallaa buu ina leeyahay ninkan jarmalka dib uuso walaal qariirada dee wadan horumarsano habeen walba laga quruxdaa joogtaayaha ceebeynina googlaha ku qor googlaha ku tilmaamaya haddii lug lagu gaadhayo haddii tareen loo raacayo ee daacad ma tahay hay'adayna de tartiib de waaye adigu anigi baa de na qarxisaybe kuma qarxinin waxayna sugaya hablo joof iyo jawran leh aasiya america bangladesh israa'iil suudaan aribo de walaale dad baan internetka isticmaali aqoon baa jira Soomaa qushiya ka gudub inantan seed u aragtaa alxaasil almuraad de inaan soo waashay waaye de waan soo dhaweynaynaa inanku muu ku soo dhaweynayaa walaal inanta ma ku qanacsan tahay maadaama uu waqti badan ku siiyey inankan iyo jarmalka iyo gebigiisaba duuduub iyo jilmad ma ku qaadatay may hadalkiis bay ma deeqin kumuu deeqin waad u cuntami weyday war yaa ninka jarmalka jooga waa daashay deenaadar maxay ka wada hadda waayahay biisa badan buu soo cunay bay tiro in arsibaad u daalantahay buuga horumarka ma kugu xariiqa ha qushi sidee ugu jira waxaan kuu hayaa inan ninka jarmalka jooga inan la idhaahdo safiye cabdi cige oo ku nool wadanka from Germany beerka u jiifta Berlin 26 saddex ilmood haysata odaygiina ka dhintay seed u aragtaa ma sha Allah soo dhaweynaa gorwaashay waa yahay lambarkan ka reebaya sidee ugu jira aad baan kuu salaamay lambarka waan kaa reebay walaal inanta adigana aad baan kuu salaamay insha Allah waxaan rajaynayaa inaan ku soo siiyo inaan jooga Djibouti oo macni daadiisu 26 tahay aad baan kuu salaamayaa dadka kale aan chance siinayna hayo lambarkana waan kaa hayaa hello salaamu calaykum عليكم السلام walaal ku soo dhawow barnaamijka tabarucaad u gargaar walaalkaaga dhibanaha magacaaga da'daada waa jaamac walaal waan ku maqlaaye macnaha magacaaga da'daada iyo waddankaad joogtid magacaygu waa jaamac walaal kuma maqlo sidaa ugu jir hello walaal sidaa ugu jir wa hello walaal laguma maqlo walaal hello walaal ma maqasho walaal khadkaa kaa xun mar labaad maad nagu soo celin haa waa jaamac war walaal waan ku maqlaa isdeji si yaroo noorma macnihii u hadal si yaroo caadiya magacaaga da'daada waddankaad joogtid war yaa ilaahay aqaan waa jaamac noolay magaalada Mooshin Jarmal waar jarmalow jahada sheega ee waadna dhibteene wax ka hadla war ma jarmalkaad joogtaa jarmalkaan joogaa magaalada Mooshin war da'daada iyo magacaaga 25 baan jiraa jaamac weeye barnaamijkan intaad furtoo dhan waan la socday gabadhii aad igu soo xidhay niyow reerkoogii lacag baan u diray qarash baa i galay aniguna waxaan isaga shaqeeyaa site firma 8 saacadood baan soo istaagaa deecagaha ay soo barara laakiin inaadaro arrin adag baa ila soo daristay inaad ila talisaan doonaya war anigu talinta dhakhtarra ma haysto cilaaj ma haysto sheekh aadan siire ma yihi walaal jarmalkaad joogtaa war hablihii waadna salcisano annagiina waanu xumbaynay oo waanu daalay
anigu inan baan ku siiyey inantii ma la hadasho contacti ma la samayso romantic ma noqotay war gabadhii aadi siisay romantic waan noqonay waan la hadlay maalintan sirigee masaajidka ayaabay arrini nagu soo korodhay adeero war miskiidka inantu ilaan muslim bay ahayde war yaa ilaahay yaqaan inan baa khadka hadda ku jirto joof iyo joorad leh waqti badan baan ku siiyey inantu muslim bay ahayde macnaa miskiid iyo waxaa intaad iga daysay inantii ma la hadashay maxaa dhiba idinkala soo dhex maray inantii waa la hadlay adeero maalintan masjidka tegayna bay igu tiri inantin iyo uur baan leeyay haye dabadeedna ilaah baa yaabii keenay adeer haye inantii waxay ku jirtay meel la dhaho basphone group iyo wax saasa basphone yaa phone group wax la dhaho ciyaalka la isugu geeyay ku jirtay haye amariya xaasilin adeer hadal yaan kugu dawaqina gabadhii waxay tidhi niyo uur baan leeyay nina waa u kaadi cali walaal cali salli calaa nebi anigu macnihii hadda dacwad qaadi maayo anigu caliyow hadda maxkamad ma haysto anigu caliyow yacnihii walaal waxaan hadda daadinayaa waa barnaamij inan baan ku siiyey inantii waad la hadashay ama uur ha ku soo baxo ama afka ha u dhacdo anigu walaalayaal uurkooga kuma jiro dadkaan isa siiyo war dhibta iyo aflagaadada aan kala daysano inantii markaad la hadashay uurka ku soo baxay dee muxuu ahaa inan uurku qof uur iskama qaadee macnuu ku qaadaaye afghanistan bay u leeday uur markaa waxay ku tiri adiga wiilkeeda in adeerow astur waxaan sameeyo hadda ma garanayo in waxaan u baahnay in adeerow inaad mar kale in buugga naxariista qarashkaygii baxayna iska ilaawo buugga naxariistana iigu celisa mar kale horeynu isku waraysanay buugga naxariiska in badan baad ku xusnayd inan baan kuu helay aad macnihii waddan ku wada nooshihiin isku dhowdihiin from jarmalka dee inkaarta la soo daristay anigu garan maayo ka gudub inan baa hadda khadka ku jirta jaamac aan ismaqallo walaal anigu inanta ma dhalin waddan kalama iman ma aqoonin sidaad iga tahay bay iga tahay kuwa hore sidaad iga tahay bay iga yihiin ummadda soomaaliyeedna way ina maqlaysa halka aflagaadaad iisoo qortaan iisoo dirtaan meel walbaad igu aflagaadaysaan macnihii aniguna idinkama mudni inaad i aflagaadaysaan public baan inan kaa siiyey public baad igala soo hadlaysaa inan baa hadda khadka ku jirta joof iyo johorad leh maadaamaad miskiin taag daran iyo sayd firmooyin iyo 8 saacadood oo soo taagneed iyo dhuux gorar ka warrantay inan baa hadda khadka ku jirta inantaasaan ku barayaa sidaa khadka ugu jir okay hello salaamu calaykum walaal gabar soomaaliyeed mar labaad وعليكم السلام أبو abaayo way dhaaftay abaayo caawa waxa khadka ku jira ninka jaamac ee jarmalka ku nool jaamac cabashadiisa waad arkaysaa waanu xiiqno walaal qanjihii baana bararay walaal jaamac jarmalku jooga inan baan siiyey imiga muddo laga joogo 5 bilood iyo ma bad sidoo sheegayo inantii anigu ma garanayo inan jugaysan iyo waxbuu ka warramayaa uur iyo macnihii wuxuu ka warramayaa wax ayade macnihii uurku dila waa wax jira ee adigu inankaas inantii way uur iyo waxbay Afghanistan iyo yeelatay buu ina leeyahay mar labaad ugu celi da'daada iyo magacaaga iyo meeshaad joogtid waxaan joogaa Nairobi aan joogaa ku sheegay 20 jiraan Nairobi bay ku nooshahay war jaamac may maqashaa jaamacow waa ku maqlaa haddaad i maqashid oo qof ilaahay iyo insaan kaba garanaya tii waxay ku nooshahay 22 jir Kenya ku nool jarmalkii waad ka cabatay saasay ku gashay seed u aragtaa may ku maqantay mo war in walaal imagaba haddaad wax uur isku og tahay war ilaahay yaa yaqaan ama wax dhib ku haysatay inta Kenya joogtay ama aad macnihii nin lagu daray waadoo yar iyaad wax og tahay inanka u sheeg أبو سقام ودق وسقام تدق wax weydiinayaan yaa walaal mar baan dakhramay gabadha hadaanay ku qornay igu soo qabaniyo igu soo qabo haday joogto ku maqantayna iga dhaafinadeerow hay dhibin aniga mar labaad lacag iga shubi waar dhibitaada ay soo wacay walaal anigu gurigaagi maxaan kugu dhibaya walaal aan kugu sameeyay anigu ma dhibtaadan ka talinaya aday soo wacay inantu way caafimaad qabtaa inankan cali baa la idhaa ilmo horuu soo dhalay ilmihiina waa lagaga murmay waa liibe runtaan cadaynaya wallahi wuu ii sheegay ilmo hore lagaga murmayna uu soo dhalay oo wuxuu ka yimid Soomaaliya magaalada la idhaa Qarbi Dahar markaa walaal waqti badan baan idin siiyey cali way kuu sheegtay inay caafimaad qabto haye hadday caafimaad qabtay igu soo qabaynaadeen haddaanay wax juga qabin caafimaad qabto maqashii wariya ilaahay qana walaal maqashii mar labaad inaad caafimaad qabtid cali
أبغى سكت توقع مياه بس سكت توقع ضدك محار أنت مع عافمة القوانين الحمد لله رب العالمين dee anigu سكت walaal محسكوك مياه habeen walba waa macabashaan ku jirnaa niyow israa'iil baanu ku caban jirnay iyo baakistaan iyo waddanka boqor salmaani ma jarmalkina miyuu noogu darsamay dhiikar baa laga qaaday yaa walaal cali lama maqlay sug war yaa cali walaal soomaali nabi maxamed yaa walaal allah baan ku jiraa waan isku xoogsadaa nin xoog labaanahay lacagtan qaato waxaan ku baxsho oo ubad ii dhala keliya taan u baahanayn adeero ubadka allah bixiya cali waa daalan tahay sideed saacadood baad shaqaysataa oohinta iyo calaacalka faraha badan qaar horaanu isku nacnay caliyow walaal jarmalka ummadda ku nool neefka ha ii gelinin nin nabadoon baanahay adigana walaal waxaan ku leeyahay risiqa allaha kuu barakeeyo inantan haddaad soo qaadan kartid haddaad u tegi kartid haddaad fasaxaysid iyo haddaad lu goynaysidba haddaba halkaa ka cadday caliyow war hadday caafimaad qabtid tegidaad sheegaysaa waan la soo joogayaa bilo niyo qushi ka gudub uu kaa kuu sheegay walaal inuu ku yimaad buu diyaar u yahay walbahaarkii iyo waayaha ka farabatay jarmalka iyo qurbaha walaal inantaay ma ku faraxday oo kaliya laab ma soo dhaweysay mise wax kalaa jira هلو لقمة مقلسة وقتشر هلو سوق وارسوق عليه ولا لو إن أنت ما كو قناع سنت هذا كو قناع سنت ما كو سيا مسا قف كلام ويجا ما وعاد وابو وعادي عليه ودواد مقشة لبدين بلم قناع ذي سما وروي كو قناع ذي سما واتا وادقا مقلة يوي كو قناع ذي ما شاء الله فرحة فرن صاحب فرحة شوران فرحة الشوران أي واجي ولا فرحة الشوران يدعو كل هذا دعوة ده الدعاء ده كان الدعاء كأجر دع ما يصير له مهر حرام على صدق إلا وين كنت دعي أنا ما أدي وين كنت دعي هذا كنت دعوة ما نود دعيسي الدعاء نواس كوذا الدعاء نيا واس كوذا الدعاء نواس دعاء سنت ينا يدعاء سن هذا روي دعاء سن والله الرجل شرم الكوا كوا دالن إلهي بعد كل داري برنامج الشهر قرية سوالي إن هذا الوان بديتني هو ورشان يا وشان سلام ديركوج يا كافر فروي كافر فرته ده بريت ولاد ناس عبان صاد أردنا يسا كينياتي بيقولوا له هذا يا كمسؤولة إذا كمسؤولة إن هلا دونا بالهرت ما كنت كمسؤول هاي نورت war anigu mas'uulka deynaadan qofka telefoon baan ka qoraa waalidkiisa ma aqaano meeluu galo ma aqaano aad baan idin salaamaya labadiinuba walaalayaal waad isku dul caajisteen hadaalina sidii kale u daalantay cali waan ku salaamay cali hay waa ka qaadayna waa nabadgeliyo dadka jarmalkay wada daalan walaalo inantay adiguna allah isku kiin asturo cali haya boo insha Allah haya baayo ya salaama كان قرأ إلى مركنا مع السلامة خير قبا هلو السلام عليكم منين صوماليات هلو وعليكم السلام على وبركاته ولا الواضح حبيب سنتهاي بيئي وحاخدك كوتشرتا قبر صوماليات كنو الوطن كمرايكان كا وطن كا الهليكوبتر هذا اللي قرها حيستو أدوكم مقعاقة هذا يودن كات شوفتي صاحب مقعيق وحال راجع أن دادي نوا لبي تنجر واحد لقوما مقل راجع يا ولا راجع ما واحد تاي ما هنديان باتاي نين هندية سومالي برتبه هندي صاحب لك يعني مقعيق أساس سومان مقعيق راجع سومان راجعني هندي كلمة بحث لما فهمتي هوان جاوي ولا الفيلم هي كجدب قش waxaan joogaa wadanka asatan caasimada Holland Amsterdam arena Amsterdam Amsterdam daada saaxiib wallahi 20 sano waay walaal inanta Soomaaliyeed ninkan war muxuu magacii ninkan Raja Rinji seed u aragtay Amsterdam raaxaysanaya صح واي ما كو قناعday
waryaa way kugu Holland Europe miya yaa walaal Amsterdam tigtala mooyide inay Yurub tahay inay Aasiyada dhexe tahay de anigu ma ogi Amsterdam Holland ay ku taala caasimada Netherland Holland caasimadeeda waay ma fahantii warha Holland inantu garan maysa iyadoo yarba Mareykanka lagu soo dhex tuuray adigu ma qaaradu ma Yurub ba ma Aasiya bay ku tahay anaka keenay biri Mareykanka ma oo ana u soo duulay anaka keenay ana baray caasimada Holland ka Allah ka keenay waka ma isku faraxdeen tan ida waaya ku dhe oo raaxo u dhintaa ku dhe kawlaan liiduga ku dhe ana biiba idan soo qaada intaan keena igu leemeelay bis adi maxad biibay ina biiba baalaya sina idan soo qaadana ku dhe adi igu leemeelay bis qofta aynan ku biibaya saad u aragtaa halka muriga ma kara haduu biibay war haddaan ku imaan waaya ku dhahay war aniga hay imanin weligaana aniga agtayda ha soo marin aniga hay imanine ma inantaad ku biibaysaa misaan adigu biibaysaa war adi kuma biibay inanta haysta saaxib inanta haysta inanta isku biiba oo ilaah is-ag marmara haddaad doontaan anugu ma iskiin siiyaa un war ani ogolahay saaxib ida diyaar mate waa walaal waadiga la fahmay inaan ku warwarbo ku dhameeyay wuxuu yiri kol waan biibaya ana hadda ku biibi aniga jirmalku wiil ma laga helay miyaa jirmal yaa rabaa war walaal salli ala nabi walaalo inaan kan biibayo wax biibayo walaal ilaah baan ku dhaariyo wax la qabo ani jirmal karaba waayahay waar masuul inantu jarmalkay rabtaa adiguna waxaadna tiri waan inaan ku biibaan rabaa walaal itaqullah waxba ha isku biibina saamixnaakum aameenan baan ku eegnaa khadka saa ugu jir hello yaa walaal waa ku maqlaa saaxib okay waay no dadka horta ma dhiikarba dadka horta ma dad habaaranba Soomaalidu ilaah baa isku horta ma habaaran yihiin ni anu waan yaabanahay wallahi way habaaran Soomaalidu walaalo adiguna ma xatir jarmalkaan rabaa anigu jarmalka joogaa yaa ku iman maayo maxaa xala kii kugu biibayaad ka cararaysaa adaaba ma diidaysan oo si ku iman maayo jarmalkana kuma imanayo maada imanaya yaan laga wayn mid kulul baan imika kugu qabanayo ilaahay baa igu ogay aadan waa dhowrkaasaan beerka ka saarayaa hallo xabiska miskiin haduu rabo wax yar laakiin hadii la helayo oo nolosha ka faasitay anigu ama nolosha ka faasitay ama nolosha ka dhacay anigu nin jarmal baan ku haya hello salaamu calaykum calaykum asalaam walaal barnaamijku waa gabagabo magacaaga da'daada iyo in lagu biiba diiday Mareykanka ku nool baa khadka ku jirta laakiin magacaaga iyo da'daada magacaygu waa liibaan xasan daahir ha abtirsanna liibaan da'daydu waa 24 jir 24 jir isku tuntay mise iskaraacay 24 jir isku tuntay oo iskaraacay oo ku nool wadanka Jarmalka war Jarmalku fara badan magaalada Hamburg war Jarmalku waay magaalada Hamburg ku nool war Jarmalka walaal ilaahay baa ku keenay wadanka Jarmalka aad ku nooshahay Hamburg aad ku nooshahay da'daadu waa 24 jir labadaba isku darsaday ma soo kuftay may wax alla waxaan arkay ma jiro ma caafimaad qabtaa waan caafimaad qabaa masaajid baan dhagax dhigayaa ninka xoogga cararayanahay anigu kuma arko allahuma ballaqtu inaad naftu raqabadu ka saaran iyo inaad tafto war ilaa anigu kuma arka anigu ma kuma arka igu dambaab hadambaab ilaahay baa ku arkaa inaad masaajid dhagax dhigi walaal inaan ku Jarmalku jooga waa ninka miskiidka dhagax dhigaya waa ninka joofiya johorada leh waa ninka hadii eeba idankeyga leeyahay korku qaadayo romantiga ee ku ciyaarsiinaya ana imanaya baad tiri ku kulul siibaas lahayn ninka qabow Germany haduu wiil wax badan fahmaayay sax waay de walaal ama September imo ama saliid u laaqo inaan Jarmalka jooga waa inantu waxay ku leedahay September baan imanayaa ee romantic ma tahay ma soo dhaweynaya
dee soo dhaweynta dee inuu ku soo dhaweynayo inuu tareen ku anigu ma aniga yaan lay qabtay anigu diyaar calafkaygaan u hayo dee sideen wax calaf oo reer u samaysan lahaa baan diyaar u hay yaa sidii aan reer u samaysan lahaa baan diyaar u ahay hadday gabadha soo dhaweynayaa gabadha waar inantu dee waana iskaya siini waa laba qodob kala saar anu iskiin siin may waalidiintii idin dhashay baa iskiin siine anu waan iskiin guddoonsiin labadiina lambar inantu soo dhaweynayo waxbay ka hadlaysa adigu ma soo dhaweyn baad u diyaartahay mise guur soo dhaweyn iyo guurba diyaar baan ahay waxaa la waxay ga dablato wada noolaadaad isleedihiin wakaa walaal wakaa kuuri waan ku soo dhaweynaya ma wax kalaad ku xidhaysid baa jira wax xijaa may hadduu caafimaad qabo hadduu wuxuu haysanay anaa waxay fahantay laakiin hadduu nolosha fahansan yahay oo daacadii eebiso alxamdulilah ilaahay baa keenay deeqa dajiya koob shaa kuguma xidhayso imika sidii jarmalka caligii ka soo ooriyey xitaa shaqo haddaad haysid waad dhigaysaa waxay ku raabtaa inantu diyaar baanu ahay oo wax walba oon ogolahay waa jacayl un keliya un inaad romantic yaroo dayaran baragina jarmalka joogo naf iskeliya oo waa ku kaa walaalo waan u sheegay xanuun aad u qarisay muu jira albaab gacanad iskaga xidha iyo khalaafo iyo wax may oo walaalo ilaahay ka baq ku dhaarin mayno haddaan masaajid ku dhaarinay inaan maxbaa jira may in arrinta waan ka caafimaad qabaa ilaa waagaad yaraydo abtiye ku dharbaaxay weli lima dharbaaxinba waayahay naasaskan iyo waxaan daadaa ka joojinaya anagu saska sixiroole aw rusheeye ma nihiine bes waan iskiis anigu lambaradiin waan isgudboonsiyey barnaamijkana waan ka baxayaa aad baan idiin salaamay intaasaa ideeqda anigu werwer baan kaga baxay tilaa kolkii hore haddaad labadiinaasi ugu dambeeya siyaashaan waan farxay wallaahi ilaahay baa mahadlay aad baan idiin salaamay labada lambarna waa idinka reebay walaalayaal soomaaliyeed waan ogahay